arintaas Axmedow waa arin isu soo taraysa oo aad isu soo taraysa dadka deegaanka ee Muqdisho qaasatan beesha oo ka dhashay ninka la yiraahdo Qayr Murusade laf kamida oo waliba laf weyna oo magacaad loo yaqaan ayaa waxay cadeynayaan inuu san Qayr ka tirsanayn ama ka dhalan beesha Murusade odaga Qayr la yiraahdo Xasan Cali Qayr la yiraahdo odaga maartay Cali Qayr la yiraahdo inuu san dhalin laakiin habarta uu qabay waayo odagu ilmaha kala uu dhalay islaanta waxa la yiri hadda waxay ku nooshahay xaafada meesha degmada la yiraahdo madaynile ku nooshahay odagu wuu qabay laakiin waxay ahayd islaamihii rotationka ama maartay degmooyinka ka ahay madaxda maartay qol-oleyn jiray marka waxa la yiri rag waxay sheegeen ragaas oo ay cadeeyeen in uu la tuntay Siyaad Barre oo uu dhalay Siyaad Barre ayaa la sheegay ka bacdina uu noqday ciyaalkii kacaanka waxa waliba su'aalo badan dad aan ka weydiiyay waxay sheegeen oo arintaan isagu ma ka warqaba waxay yiraahdeen wuu is og yahay waxaan kala weydiiyay adinku ma ogeydeen waxay yiraahdeen waan anagu gadaalan hadeertaan maqalnay dhaheen yaani macnaha jilibkan hadda warka sheegaya waxay yiraahdeen anagu haddaan maqalnay laakiin reerkiisa hoose way ka warqabaanay dhaheen inuu san ahayn oo odagu uu san dhalin laakiin oo ahaa maaragtay Siyaad Barre dhashiisii macnaha lagu dhalay sariirta gogol dhaafka marka isagu waa Xasan Maxamed Siyaad Barre waa Xasan Maxamed Siyaad Barre okay in dadku waxay ku leeyihiin maxaad kala ugu sii faahfaahin kartaa dadku way yaabeen halkan commentiga aad bay soo qorayaan yaad ka maqashay dadku soo celinayaan warka arintan sida xaqiiqda ah beesha Murusade Berweynta Hawiye ka tirsan waa laba lafood yaani waxa weeye waa Sabti iyo Fool Culus nimanka laga hayo warkan waa nimanka Sabti la yiraahdo ayaa sheegay rag yaani waliba rag waaweyn ayaa arintan cadeeyay website ayaa soo qaatay oo ka qoreen waxaan la yiri marka ma sheegaysiin arintan banaanka ma soo dhigaysiin waa arintan waliba waxay ku soo aadasay ogta Axmedow arintan waxay ku soo aaday 3-4 cisho ka hor 5 cisho ka hor ay ku soo aaday yaani inta mishinku imaan wax yar ka hor waxay dhaheen xoogaa magaaladu way qasan tahay arintan wax yar gadaalan dhigaynaa laakiin banaankan keenaynaa ay dhaheen waan cadeynaynaa inuu san ka dhalan beesha waxa anigu marka dadkaas maadaama aan weydiiyo waxa way aad marka u qariseen inaan 4.5 inay jagadu taa wad ogtihiin in maartay oo dad matalayay ninaan deegaanka u dhalan ama aan dadkii u dhalan islaamtu haba dhashay laakiin ku yimid maartay gogol dhaaf ama dad kale ka dhashay way aad adinku jagadan u siiseen anagu gadaalan ka ogaanay yiraahdeen ma ogay asaga familkiisa hoose ama jilibkiisa hoose ma ogaayeen arintaan aan yiri way ogaayeen la yiri laakiin asaga laftirkiisa iska warqaba la yiri inuu yahay gogol dhaafka Maxamed Siyaad Barre oo dhalay in qof wuxuu ku soo qoray commentiga anagu waan dareensanaa inaanu ahayn markii in dadkii deegaanka magaalada Muqdisho beesha Hawiye guryaha loogu daatay la laayay dhalinyartii beesha Hawiye in loo dhacay xaasaskoodii marka in maxaa arintan noocan sidee bay marka shacabka reer Muqdisho ugu cuntami kartaa laba nin oo isku reera inay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare noqdaan ilaa labadu waa isku reera horta arintaan shacabkan qabiilku markuu balaaran yahay dabcan wax walba ka soo baxaya naagahan la qabo oo la iska controleyna dabcan wax walba keenayaan dadku shacabka maartay islaantan hoosteeda ma aysan ilaalinaynin ama kama aysan warqabin laakiin arintan markii la baaray dabcan aba jufadiisi qayb kamida warkan oo ka soo duxay dadkan familkan kale ee Mursadana waa arintii way dhagay u raariciyeen way dhageysteen arintii marka waxay dhaheen waa soo baarnay ay dhaheen waliba niman adoo ilaa 6 nin ayaa arintaas soo cadeeyay oo yiri arinta waa soo cadeynayna annagana sii doonay dhaheen waliba la wadaagi doona idaacadaha marka kulay hadeertan keenistooda waxba tirmayso waxay ahayd inay keenaan xilli hore si maartay wadanka dib loogu noqdo doorashada aysan maartay looga qaado nin aan u dhalan maartay aan ahaynba macnaha dadkii deegaanka ama maartay xaq u lahaa jagadan maadaama uu san ahayn marka ay ahayd nin lagu keenay gogol dhaaf waa
waxaa kale oon ba maqlay gabar ayadana sidoo kale aanan rabin halkan hadda inaan ka sheego ayadana qabaa'ilada kale mid kamida lagu sheegay oo sheegata laakiin la ogaada ayadana in Siyaad Barre dhalay marka odagii Siyaad Barre waxba lagu leeyahay naagu la tuman jiray subhanallah waa wax lala yaabo waxa lagu leeyahay islaantii ama gabadhii oo markaas ka helaa maaragtay wuu iskala tuman jiraa la yiri marka ciyaal badan oo dhalaaba magaalada joogtaa lagu leeyahay ciyaalka kacaanka hadaad maqashay lagu leeyahay waa wax uu dhalaa asaw badankooda ba isaga dhalay badankooda ba isaga dhalay de wixii maaragtay markaas ama banaanada laga qaado ama maaragtay ciyaal waxa la soo tuura aan ahayn laakiin inta maaragtay qaar badan aad jira la yiri oo asagu uu dhalay marka de miduna de maaragtay oo kulay intii u diiwaan gashanayd ama islaamihii u diiwaan gashnaayo de meherka uu ku qabay mooyaane inta kale waxa weeye wax la sheegta ma aysan ahayn runtii dadku caawa boqolaal iyo kumanaan qof baa ku daawanayo aad iyo aad waraysigaagan ula dhacay runtii qof waliba wuxuu leeyahay maanaan ogeyn waan dareensanaa ma filayn macnaha kamay dhicin adduunka qof deegaankiisii iyo dadkiisii dulmi iyo hantidii deegaankiisa kasoo baxaysay ku bixinaya magaratay xaqdarro dhulkiisa qarxayo aan ka damqanayn dhibaato ka jirto magaranaysaa macnaha markaa dardaarankaaga maxaad u diri lahayd maadaama ta qof caan oo de inta badan dadka halkan kaa daawanaya kumanaanka way ku garanayaan qof caana oo de maaragtay aqoon-yahana oo de ka hadasho warbaahinta waaweyn iyo baraha bulshadaba oo siyaasiyada bal la dardaaran dadka wax magaratada ee aan de caqliga lahayn haddana dadka ugu badan ee galmudug iyo hirshabeelle iyo banaadir dega bal maxaad kuwaa leedahay bal aan dhiigga lahayn kuwa de madaqadayaasha horta waxaan leeyahay odayaashii soo sheegay arrintan waxaan leeyahay aad idinkaga mahad celinayaa bad waad soo daahdeen aan leeyahay waqtiga aad warka soo sheegteenna waa too late yacni waa xilli uu ku qaraabtay wuxuu dili karana ku dilay wuxuu dhici karana ku dhacay magac beelaawiye waxaan leeyahay wixii magacaas horta beelaawiye lagu jaa'ifeeyey ama lagu dhibaateeyey ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka raali ahaada wax maarta u yaala macnaha anaga magaceeni lagu qasaaray weeye waana ayaan darada ummadda Soomaaliyeed haysata ee ku habsatay iska warqab la'aanta iyo waxaan la ogeyn oo maaragtay iska keensanayo ama aan la soo baarin midda kale beeshan maantay ku dhacday jabkan ina Siyaad Barre oo u noqday madaxweynaha asagoo qabiilkoodii matalaya in ay ka feejignaadaan dadka ay keensanayaan iska soo baaraan oo asal iyo fasalkooda la soo ogaado aysan iska keensan macnaha beesha murursadeen leenahay macnaha si dadka kale u fahmaan kumanaan bayna daawanay moogta caawa maya beesha murursada dad xalaala oo ehelul karama oo ehel sharaf ah ka buuxda in yaro maaragtay isaga daba taagan oo waliba xataa ka warqabin mooyaane laakiin dadku waxay u badan yihiin ehelul karam ay u badan yihiin oo sharaf leh oo la yaqaano dad lagu ciyaari karo maahan Cali Wardhiigley baa ka dhashay laakiin waxaan leeyahay hadda ka bacdi inay